بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوياش قيمة لي ميل كستود أدونكو جوكتان وحمد لله هاي إلهي سبحانه وتعالى مالنتين هيدي بركيو إلهي سبحانه وتعالى أولاد هدين حفظيو وتحنيه إني أها تربية تحنها تربية توصل صدح هذا تا قيبتي أفراد قيبتي كواد وحنقصو هدلي oo aan saldhig uga dhigay buuggan la yiraahdo sidee ilmaha ku maqlaa faham ilmahaaga farxad kula noolow buuggan waa buugaad heli kartid meel waan kuu soo diraynaa telefoonka iyo emailka aan hoos ku qorayo insha allahu tacaala ayaad nagala soo xiriiri kartaa waa taxanaha tarbiyadda toosan qaybtii afraad maanta qaybtii koowaad ee taxanaha tarbiyadda toosan waxaan uga soo hadlay hordhaca buugga iyo waxyaala qisas badan oo ku dhex jira iyo sababta ay u kaliftay buugga inaan qoro qaybta labaad ee taxanaha tarbiyadda toosan waxaan uga hadlay oo aan ku bilaabay 11 arrimood oo aasaas u ah waalid kasta oo wax tarbiyadeynaya qaybteeda koowaad ama arrinteeda koowaad oo ah joogtaynta waalid kasta oo wax tarbiyadeynaya qof kasta oo hawl qabanaya qof kasta oo raba inuu guul gaaro waayo waxaan rabnaa ilmahayna markaan tarbiyadeynaya inay guul gaaraan inaguna guul gaarno wax guul laga gaaro oo aan la joogtaynin ma jirto sidaa daraaddeed waalidka wax tarbiyadeynaya waxaa aasaas u ah inay inay naftiisu leedahay dabeecada joogtayn insaanku kama sinna oo alle subxaana wa tacaala waa loo kala duway qof baa ku dhasha dabeecada joogtaynta qofna kuma dhasho xoogaa buu ka leeyahay qofka aan lahayn wuu baran karayaa buugga waxaan ku qoray taba iyo xeelado badan oo qofku ku baran karo inuu wax joogteeyo arrinta labaad oo ah waalid kasta oo wax tarbiyadeynaya looga baahan yahay oo qaybtii saddexaad ee taxanaha tarbiyadda toosan aan uga hadlay waxa weeye xakamaynta xanaaqa ka xakamaynta carada qof kastoo bini aadan wuu caroonayaa laakiin waa inaynu baranaa inaynu wax saxa ku caroonno isla markaana xakamayno caradu markay timaado qaybta afraad ee taxanaha tarbiyadda toosan oo aan saldhig uga dhigayo buuggeen la yidhaahdo sidee ilmahaaga kuu maqlaa faham ilmahaaga farxad kula noolo waan aaminsanahay buug ay tahay guri walba oo soomaaliyeed oo carruur joogto ama waalid kasta oo carruur haystaa inuu haysto akhriyo ku noqnoqdo hal mar keliya maaha inuu ku noqnoqdo si fiican u fahmo waxa weeye qirashada khaladka dhib badan mujtamaca soomaaliyeed markaad saas u aragtid waxaa kaaga soo baxaya in qof khaladkiisa qaadanaya inaanu jirin oo qof waliba uusan lahayn geesinimo oo ku yiraahdo waxa uu khalday anaa sameeyey hadday madax noqoto hadday dad kale noqoto hadday meel walba bulsheen haddaad aragtid waxaad arkaysaa inaanu jirin qof khaladkiisa qaadanaya waana arrin ka timid tarbiyad guryaheena aynu kala nimi nidaamkeena tarbiyadeed ah oo ah inaanu qofku khaladkiisa qaadan qiso baan idinkaga hormaraya qisada koowaad baan idinkaga hormaraya dhowr qisa ku jira arrintaas ah maxaa la yidhahdaa qirashada khaladka xilli aan macallin u ahaa arday soomaaliyeed ayaan waxaan ku iri waa waddanka denmark ayaan waxaan ku iri khalad kasta ood samaysaan waalidkii lama xiriirayo laakiin waxaan u baahanahay oo keliya inaad runta ii sheegtaan qiso cajiib wey gabar ka mida gabdhihii aan macallinka u ahaa ayaa waxay tiri macallin iskool deenishay tagtaa marka waxay tiri maanta macallin waxa dhacay miyaad og tahay mayaan ku iri waxay tiri wiil aanu isku kalaas nahay ayaa wuxuu jebiyey albaab muraayadu haraata ku dhafta way jabtay macallimadii baa soo gashay markay macallimadii soo gashay waxay tiri yaa jebiyey wiilkii waxay tiri gacantu taagay aniga waxay tiri afkaan qabtay waxaan is iri miyuu waalan yahay kan muxuu isu sheegayaa kadib macallimadii waxay tiri dhib male waalidkaabaa bixinaya casharkeedii bay sii wadatay gabadhii marka waxaan weydiiyey ka waran haddii uusan is sheegi lahayn maxaa dhici lahaa waxay tiri maalintaas oo dhan macallimadu waxay waqtiga nagaga qaadeen inay ogaato yaa jebiyey gabadhu may khaldaneen laakiin waa nidaam barbaarineedkeenna u baahan inaynu saxno toosino qofka bini aadamkahay waa geesinimo qof kasta bini aadan wuu khaldamayaa laakiin inuu ku yidho inuu khaldamo inuu qirashadiisa waxaa loo baahan yahay waalid ahaan inaynu ilmaheenna barno inagu baranno horta inaynu khaladkeenna qiranno waayo ma nihin malaa'ig qof bini aadan aynu nahay inaynu khaladkeenna qiranno ilmaheenna u qiranno iyaguna bartaan inay qirtaan taa cagsigeeda ma aha ilmuhu khalad aanu gelin laba arrimood oo u baahan in miisaan loogu sameeyo ilmuhu markaanu khaldaminna inuu xaqiisa ku taagnaado oo uu yiraahdo aniga maaha in laga aqbalaa loo baahan yahay isla markaana in la baro inuu khaladkiisa qirto labada arrimoodba in la baro in haddaanu khaldamin uu yiraahdo aniga maahana laga aqbalo si uu u yeesho go'aan sugan
iyo marka uu khaldamo inuu qorto yiraahdo aniga weeye dhibaato ma bini aadam way wal khaldamay inaan waxba laga soo qaadin oo la weynay qisada labaad baan idinkaga dhacaya dhaqankeenan raba inaad aragtaan khaladaadka ku jira inay u baahan tahay dib u noqosho iyo sixitaan badan wiil ayaa geed saarnaa geedkii uu ka soo dhacay dhaawac baa gaaray aabihiisa u yimi aabihiis wuxuu ku yiri war geedka yaa kaa soo tuuray wuxuu aabi cidinayga ma soo tuuray anaa kaa soo dhacay anaa keligii baa ka soo dhacay aabihii marka wiilkii wuxuu ku celiyey wuxuu yiri yaa ku ag marayay wiilkii wuxuu yiri aabi cidinayga ma ag marayna keligii baa geedka ahaa cidin geedka ma kula saarnayd ma yiri aabi cidinay ma saarnayd cid ku soo eegtay ma jirtaa markaad geedka fuushanayd may cidinay may soo eegin wuxuu yiri war iga tag doqom aabu marka filashadiisu maxay ahayd inuu wiilku u sheego cid uu soo eegtay uu yiraahdo wiilkayga soo dhicidiisa adaa sabab u ah way wad soo eegtay way wad ag maraysay aabii wuxuu ku yiri wiilkii war iga tag gacan jaban iyo dhaawac iyo garla'aan baad isugu kaydartay aabii wuxuu rabay cid uu la doonto uu yiraahdo wiilkayga adiga khaladkiisa lahaaye bixi maxaa la yiraahdaa dhaawiciisa arrintaas marka waxay muujinaysaa in arrin dhaqankeena ku jirto khalad la'aan qofka bini'aadamku khalad kasta oo dhaco inuu doono cid uu eedeeda saaro yiraahdo hebel baa mas'uulka kana mas'uulka ilaa aynu nahno jinka mas'uulka ilaa aynu aqbali weyno inaynu inaynu bini'aadam khaldami karanahay khaladkeena nasixi karno waayo haddaadan aaminsaneen inaad khaldantay yaase haddii khaladka aad gashay ee cid kale mas'uul ka tahay dee cid kale adigu ma sixi kartid laakiin haddaad aamintid inaad tahay qof bini'aadam oo khaldamay khaladkaad waad baran kartaa waxna waad ka baran kartaa ilmaheennana waan bari karnaa maxaa dhacay marka qisadii waxaan idiin waday wiilkii iyo aabihiisa maalintii dambe wiilka oo meel maraya keligiis ayaa wuxuu dhacday wiilba ag marayay wiilkii keligii buu kufay aabuhuna wuu arkayay meel dheer buu ka arkay waxaa dhacay wiilkii jilibku ka murxay wiilkii wuu ooyey aabihii baa u yimi aabe maxaa kugu dhacay wuxuu yidhi aabe wiilkaasaa kufiyey aabuhu marka uu arkayay inaan wiilkan kufinna wiilku iskii dhacay aad buu aabihii wuxuu uga murugooday inuu wiilkiisa baray inuu cid kale khaladkiisa eedeel saaro arrintaynu u baahannahay marka waxa weeye inaynu baranno qof kastoo bini aadana wuu khaldamaa khaladkana waxaa laga bartaa waxa loo khaldamaa in khaladka wax laga barto inaynu baranno nafteena inaynu khaldami karno khaladkeenna wax ka baranno isla markaana ilmaheenna ku tarbiyayno arrintaa waa arrin muhiima waxa noloshu inoogu fadhiisan la'dahay haddaynu Soomaali nahay nidaam u heli la'nahay wax fadhiyo nolol fadhido oo u heli la'nahay waxa weeye qof bini aadan oo la xisaabtamo la garan maayo qof walba dambiile ahi ma jiro qof walba aniga ma aha isaga ma aha iyada ma aha jinni baan soo eegay marka waxaynu u baahannahay walaalayaal bini aadan baynu nahay inaynu barano carruurteena u qirano markaynu khaldano dhahno aabe hooyo raalli ah waa khaldamay isagu markuu khaldamo inaad ka aqbashid oo ku qaylin laakiin khaladkiisa wax ka bartid isaguna aad aragtid oo ka yeeshid maxaa la yiraahdaa isla markaana aadan ka aqbalin hadduu u qiran waayo khaladkiisa isla markaana inaan naftiisa la daciifin oo aan la barin khalad kastoo dhaco inuu yiraahdo bes aniga weeye kaliya in maxaa la yiraahdaa si culayska uga dhaco intaas reebaanta inaan idinla wadaago qaybta afraad taxanaha tarbiyadda toosan anigoo Cabdulla Cabdiraxmaan Shafay qaybtii koowaad waxaan uga hadalnay hordhac buugga hordhiciisa qaybtii labaad waxaan uga hadlay 11 arrimood ee waalid kasta looga baahan yahay wax tarbiyadeynaya looga baahan yahay inuu yeesho arrinteeda koowaad oo ahayd joogteynta qaybtii saddexaad ee tarbiyadda taxanaha tarbiyadda toosan waxaan uga hadlay xakamaynta xanaaqa qaybtan afraadna waxay ahayd qirashada khaladka kulan dambe insha Allah intaan isugu soo noqonayno waan islaamaya assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh